السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو هذا جنال كالصومالي هاشتاج دردارن أضي آبا أيا ويلكيسا u dardaarmay isaga oo kule wiilkaygiiyo saddex ka tanaazulin inaad cuntatan ugu wanaagsan kuna seexato firaash ama gogoltan ugu fiican iyo inaad degto guri la dago kan ugu fiican. wiilkii ayaa ku jawaabay inagu waxaan nahay dad fuqara ah sidee ku dhici kartaa arintaas. aabihii ayaa ugu jawaabay haddaad cunto marka aad gaajaysan tahay cuntadaasi waxay ku noqon cunto lucunatan ugu wanaagsan haddii aad shaqaysato oo aad dadaasho dadkana aad uurka waxba ugu qaadin kadibna aad seexato gogoshaasi waxay ku noqon gogol lagu seexdatan ugu fiican. haddaad gudato xaqa rabbiga kugu leeyahay iyo xaqa aadamaha dadkana aad kula dhaqanto dhaqan wanaagsan waxaad degaysaa dadka qalbiyadooda sidaasina waxaad ku degtay guri la dago kan ugu fiican. oday ayaa wiilkiisa u dardaarmay wuxuuna ku yiri wiilkaygiiyow ka yeel shayga ugu horeeya aad kasbanaysid iimaanka kadib saaxiib wanaagsan. saaxiibkaas tusaalihiisa waa sida geedkaas haddaad hoos fariisato wuu ku hoosin haddaad wax ka qaadatana mirihiisa wuu ku qoodin hadduuna ku anficinna ku dhibi maayo. ma ahan siismada in lagu siiyo kun saaxiib laakiin waa in lagugu irsaaqo saaxiib ku anfacaya wax u dhigma 1000 sano. muhiim maaha inuu maalin walba agtaada joogo laakiin waa inaad dareentaa inuu agtaada joogo haba kaa fogaadee. jacayl kasta wuu dhamaadaa oo wuu go'aa ilaa iyo jacaylka ilaahay dartiis loo isku jeclaada mooye. nin xikmad badnaa ayaa wiilkiisa u dardaarmay wuxuuna ku yiri wiilkaygiiyow waligay aamusnaanta kamaan shallaytoon. wiilkaygiiyow sharta ka fogow way kaa fogaani. wiilkaygiiyow carabkaaga kaga caada dhig kalmadda ah ilaahayow ii dambi dhaaf. ilaahay wuxuu leeyahay saacado uu soo celin ducada qof ducaystay. wiilkaygiiyow ma jiro wax ka wanaagsan qalbiga iyo carabka haddii hagaagaan mana jiro wax ka xun haddii xumaadaan. wiilkaygiiyow adduunyada ha degin qalbigan yayna kaa mashquulin waayo lagumaba abuurin. wiilkaygiiyow qofkii naxariistaa waa loo naxariistaa qofkii aamusaana wuu nabadgalaa qofkaan carabkiisa xakameynina wuu shallaytoodaa. wiilkaygiiyow ambiyada waxaan ka faa'iido ka bartay 3 arrimood. haddaad salaad ku jirto qalbigaaga ilaali markaad guri kale oo aan kaaga ahayn joogtidna araggaaga ilaali markaad cunto cunaysana calooshaada ilaali. 2 weligaa ha sheegin xumaanta dadka ay ku geysteen iyo wanaagga aad u samaysay.